daawadayaal waxaynu ku sugannahay masjidka Al-Huda ee magaalada Falen wadanka Sweden halkaasoo ay maanta lagu mashquulsan yahay furitaanka masjidka Al-Huda. Masjidka Al-Huda ayaa marka hore wuxuu ahaan jiray meel kaniisad ah intaana loo bedelin masjid. Maanta ayaana munaasabadii furitaanka masjidka dadka ay u joogaan waxaana kasoo qayb galay dad badan oo muslimiin ah. Haddaba TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel oo goobjoog ka ah furitaanka masjidka ayaa waxa uu idin soo gudbinayaa sida xafladda u dhacday daawasho wacan. marka ugu horeyntii waxaynu ku bilaabanaynaa aayado quraan ah aayadaha quraanka waxay noo akhriyayaan walaalkii يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ولا ليال kusoo dhawaada masjidka Al-Huda kunyihiisa ama naanaystiisuna ay tahay Aisha Masjid. Aisha Masjid waxaa naanays ahaan loogu bixiyey waxaa jirtay gabar muslimad ah oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidka waxayna codsatay in magacaas Aisha lagu naanayso masjidka. Intaa markaan ka gudbo waxaan u mahadcelinayaa xuduurka halkaan isugu yimid haddii ahaan lahaayeen dadka reer Falen dadka kale oo noogu yimid magaalooyinka dhowdhow iyo kuwa dheerba sida magaalooyinka Catherine Holland, Eskilstuna, Nyköping, Enköping, Velkenberg, Stockholm iyo magaalooyin aad u badan oo ay dad markaan ugu yimaadeen. walaalaha muslimiinta ay furteen magaalada Falen degan dhammaan waxaan ku mahadcelinayaa walaalihii ka soo qayb qaatay oo ka yimid gobollada oo ka soo qayb galay xafladda furitaanka masaajidka. waa sax sida walaalka uu sheegay guddigan istiirla saha ee magaalada ka jiro laba sano ayay hayeen. waxaa jiro guddi la yidhaahdo umalada shaqoqood ay ku kooban yihiin qaar ay ku maqan yihiin dibadda walaalka sheekh cawla ka mid iyo aniga oo mas-uulka ah umaladaas. marka qayr allah idin siiyo dadkii xafladdan ka soo qayb galay iyo walaalahay waxaan ku mahadcelinayaa dhammaan walaalahay ka qayb qaatay masjidkan tabarcaadiisa khaasatan walaalahay ka yimid magaalada muxuu ahay Nyköping walaalahay ka yimid magaalada Catherine Holland dadka badan laga caawiyo ayay ka mid ahaayeen walaalahay ka yimid magaalada Nyköping walaalahay ka yimid Västerås dhammaan waxaan ku mahadcelinayaa walaalihii. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هو مرة أخرى رئيسة وحي إلهي مهديسة ما أنت إن نسوون مني مقالة اللي الفرين المسجد مشاهد العالم كرسان لمدة لغا فري ويبقى ماشي أنا حاجرتي ميل كنيسة أو الأمر كيسة الورد غالب لكن ما أنت وحال ما هذه إلهي إن البيد إلهي نقطة marka insha Allah ta'ala masjidku marka uu horeysa wuxuu ka dhaxeeyaa inta muslimiinta oo dhan oo masjidullah mar hadduu masjidullah yahay waa meel qiimo badan maxaa jira magac Ilaahay oo qaato marka hadee insha Allah ta'ala qof kasta muslima waa garanaysa waxa masaajidku uu ka mudan yahay oo uu sheegin ma rabto laakiin waxaan sheegaynaa waxa waaye in masaajid caalami ah oo meel kaniisad ahaan jirtay muslimiinta ay iibsadeen Falen degan ay maanta masaajid u bedeleen hadda kaniisadda waxaa macnaheeda yaqaan culimada insha Allah iyadana ka sheekay doonta iyo waxa maanta uu yahay farqiga u dhaxeeya hadii Allah saas darteed maanta
وواحد وفرحه وواحد يعني منطقة أنا ليسوها بريايو عند المسلمين ميل كنيسة هاجرت إني قال كلا ورجين أي مساجد كلا وإلهي مهديس إلهي منكم هذينا إلهي منكم هذينا ما داس إلهي بوسقراط إن أو مساجد كأحدنا إلهي أمر كيسيكو عطا أنا كنا وكم هذينا أنت أسكت المسلمين تبحث وش مالك الساجو قال أو قدك يسوي لي الهجو قال أما قد ما قال الهجو قال مسجد ولا نسي كرا أصلا لما يكرا أسا قوش لي كرا لكن سدح شيء ومسجد كمدياي منك هي كرا وانني كتري لكن أنا شرط لي ماله محجر إنها أنت واسال مساجد كإن اللي سواسال وتري اللي سواسال كيل اللي يشنا واسال لكن سدح ذا الشيء قفك هي كرا وقف كتري خاصة المساجد كم جرو محجر ويقول بإلهي مالك الشوق وحب بهاي هذا فجر كتاب مالك الشوق وحب بهاي يعني منطقة يعني إن عرفيه مالك الشوق وحب بهاي إن علمك صعد وحصلنا نسيت كسونتي دقالين كحرين دقالين إلهي ونولي بل هاي هذا ماشى يعني منطقة هذا الكلام يصير وحاكم ذاي بسم الله الرحمن الرحيم وهراي waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo munaasabadan muhiimka ah ee lagu furaayo masjidka weyn ee magaalada Faleen waxaana ugu hambalyeeynaya muslimiinta reer Faleen iyo guud ahaan muslimiinta Soomaaliyeed ee reer Faleen juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen inay aasaasaan masjidkan weyn oo Ilaahay lagu caabudayo meel la sameeyo waxa ugu khayr badan meesha Ilaahay lagu caabudayo beedka Ilaahay lagu caabudayo ayaa ugu khayr badan meel la yagleelo oo la sameeyo sidaa darteed waxa weeyaan ajar iyo xasanaad badan ay helayaan dadkii ka soo shaqeeyay waqtiga badan geliyay in ay meeshan ay sameeyaan markeedii horena hore u ahayd kaniisad laakiin maanta ah meel Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu caabudo magaalooyinka dariska la ah magaaladan Faleena waxaan rajaynayaa in iyaguna ay ku daydaan oo ay sameeyaan juhdi iyo dadaal la mid ah kan reer Faleen ay sameeyeen si ay iyaguna u helaan meelo khayraad ah oo sida halkan oo kaleeta magaalada Iskiristuna ayaa anigu deganahay oo ka yimid waana magaalada ugu badan oo dadka Soomaalida ay degan yihiin gobolka Soomaaliland waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayaa oo aan ka baryayaa in fursadan oo kaleeto oo Ilaahay na siiyo oo annaguna aan helo sida walaalaheena reer Faleen oo kaleeto marka aad iyo aad dhiirigelin bayna siinaysaa waana ugu hambalyeeynaya reer Faleen iyo muslimiinta magaalada Faleen dadaalka iyo khayrka ay meeshan ka yagleeleen waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto anigoo ku hadlaya magaca magaalada aan deganahay Katri Holland waxaa Ilaahay mahadiisa inaan maanta aan taaganahay ama aan joogno magaalada Faleen oo lagu furaayo masjid magaalada Ilaahay uu nasiib u siiyey meeshaan oo ahayd meel kaniisada oo marka hore markii
lagu caabudayo waxaan ilaah raalli ka ahayn maantana ay noqotay masjid baytullaahi ka mid ah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid markino ilaahay barakeeyo ummadda muslimiinta ee ku nool waddanka Sweden waxaan rajaynaynaa inay magaalo walba iyo tuulo walba ay ka helaan masaajido ay ilaahay ku caabudaan magaalada aan degannahay Catherine Holland waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan walaalaheen faleen masaajidka helaan mid lamid ah ama ka weyn ama ka yar oo ilaahay uu nasiiyo annagana maadaama aan nahay walaalahood ummadda muslimiintana meel kasta joogaan waxaan ka codsanaynaa inay isku garabsadaan khayrka iyo wanaagga iyo in ilaahay markino la caabudo muslimiintana ay wax baxsadaan meel kasta ay joogaan hadday awoodaan kaniisad kasta ee ku taala waddanka Sweden ama wadamada Yurub inay iibsadaan ay ka dhigaan baytullaahi waa rajaynaynaa ummadda muslimiinta meel kasta jooga waxaan rajaynaynaa khayr iyo barako ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in meel kasta ummadda uu ku guuleeyo waddankeena nabad anaga nooga dhigo insha Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan muslimiinta waa salaamiya meel kastay joogaan adduunka meel kastay joogaan muslimiinta waa salaamiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam dabadeed maanta waxaa la furayaa masaajid ku yaala Faleen oo baytullaahi ah una dhaxeeyo muslimiinta oo dhan. waxaa marka Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaah waxa jirta Soomaalida ay ku mahmaahdo xoolaha waxay u jecel yihiin intii la dhaqdo geelay u jecel yihiin. ninbaa geel ceel keensaday xalayna wiil baa u dhashay marka wuxuu war igu sima ninbaa ii soo socday waxa weeye nin xalay dhashay ninka lagu sameeyo walaalaha muslimiinta meel kastoo joogtaan masaajidka Faleen laga furay waa masaajid igu soo sinay wax badan loo soo dhibtooday loo soo qariibay arrimo badan soo maray saadarteedna waa igu soo sinay waxaan u malaynayaa adduunka caalamka dadka joogo masaajidka waa masaajid muslim waxa la idiga codsanayaa nin walba meel walba uu joogo midlaamka masaajidka inaa maaragtay ninkii wax ku sadaqaysanayo ama Soomaali joog ama joog Sweden joog meel kastoo joogtid masaajidka waxa ugu sadaqaysan kartaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alxamdulilaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما أنتم وحالك أفضل الله بإذن الله الكريم ومرلبات المسجدات وإلهكم هذلنا مساجد وين والله غفور أيوه مجال فلان تحصل على أمه هذا المركز رسول الله على أمه هذا اليوم مركز لبعضنا aan ugu mahadanayo walaalihii inoo soo geliyay in aan furno masaajidka asaga magaalooyinka dalka Sweden oo ay ka mid tahay magaalada Catherine Holland magaalada Skellestuna magaalada Norrköping iyo magaalada Stockholm oo aan isla yahay iyo walaalaha kale ee gobolada dalka Sweden waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba 500 marka waxaan ku celinayaa walaalaha reer Faleen maadaama ilaahay uu gacanteenu soo geliyay masaajidkan aadka u qiimaha badan ilaahay uu noo soo geliyay waxaan rabaa in aan waana yar idin siiyo oo ah in aad kaashataan وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إن أصبح مرتاح من كستم ووحي كيني خلاف يبو كيني راسي إلى لسان وآدم الودان وآد قعنت إسقب شطان والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين دين تالو إلهي كربه وقاضية لكن المسلمين وحليها دون هكذا جنا يريد الله أن يطفئ نورهم بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دين تالو كربه نقول بإذن الله الكريم مركب وحليها ولا ليا لا يرفع هداتهين إسكاشرة وقعنت إسقب صلع وهلا مدو بإذن الله الكريم ما دام سايتي قعنتي نصقلي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي لو نصلح الكورة اليوم إن شاء الله. تنور رفع اليد الله سبحانه وتعالى مساجد الرسل. سواء لا نفس ساعة أو
maqlaysay gudoomiyihiina cabdicasiis iyadoo waxba meeltegi maan iska dhigo ilaahay reer guurmi yaqiintii alle talabaad qodob labaad geli waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala waddanka intaa le ku nooga doortay maxay tahay islaamka ilaa akhiri muslimiin wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala riyadii aan markiiba lahayd oo ilaahay nagu suurtageliyey oo si fudud allah uu nagu siiyey waxa weeye juhdi waa juhdiga diinta waa juhdiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam magaalada lahayd waa ijtimaaciyadii ka dhacay magaalada waa khayraadkii ka dhacay waa nusradii iyo khidmada loo sameeyey jamaacada ilaahay subxaanahu watacaala ninka martidiisa sooriyeeyo ilaahay ku sooriyeeyaa sooriyeentiisana midda halka adduunka kelimida aakhira kelima ahane tan adduunka wey waa taan maanta hayno qodobkayga saddexaad waxa weye waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baa maxad iskale iyo walaalayaasha la sheegay kuwii la sheegay inay qayb ka baxsadeen lacagta ninkii shaksiga ahay oo ilaahay dadkii quruushka u baxsanaay oo na siiyey lacagta kalowbarbar oo yidhi magacayga la sheegi shaksiga aniga halka fadhiya aan magaciisa garanay ilaahay waxaa looga baryay kulligii halka adduunyada insha allah naga xusanaya inay ilaahay uga baradin ilaahay subxaana watacaala kisadii sadaqadiisa inuu ka siiyo ciyaamihiisa maxaa sadaqada sharafta ugu wanaagsan waxay tahay sadaqada qofka uu baxsado asagoo hujjo daba dhigay ninkaa walaalkeyga siduu loo qiimeeyey asagoo lagu bartay duhri dacwa oo lagu bartay mataqaana dadaalkaa diigeed asagoo loo yimiyo saacadda lala fadiyey mashhuurooyinkii dadaalkii acmaashii ka socotay masaajidkii raay arkay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا مهتدين لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى أنت وحيرنا عورة ضياع خيرنا أخذ يعني واحد جولنا مساجد caruurta qofka weyn ee caruurta ag jooga hawsheego aynu barno habka kolka masaajidka la soo galo inagoo waaweyn iyo caruurteenuba ay xaqalamidu u soo gasho intaa dabadeed ilaahay mahadiye mahadda ilaahay baaga subxaanahu watacaala magaalada aad joogtaan muddo fara badan baan idinku soo noqnoqonaya in ka badanna idinkaa noo yimid oo muddo laga yaabo 3 sanadooda inaad noo yimaan jirteen farkabaad kolka noo timaadaan magaalada iyadu iimaanku cid ku tegi jira masaajidku u buuxsan jira goor kasta oo dad ay noo yimaadaan khaasatan dadka mutabiriinta waxaad moodaa sidii daad soo rogmaday inuu iimaanku magaalada u soo rogmadayo waa wax ilaahay subxaanahu watacaala loogu mahadnaqo magaaladiinana way bacaanahay haddaba 2 arrimood baan idin doonayaa inaad ii sheego bifadlakum dadka xagga gaba joogow dad waaweyn baa tihiin carruur yar ma tiidin si aad hadalka u dhegaysataan codka yareeya ajir ma idinku jiro nimankaa kale muuji afay ku hadlaan ma garanayo laakiinse maxaan kalada waxaa looga baahan yahay inay codka yareeyaan oo hadalka dhegaystaan waayahay mid weejaane kolka ugu horeysa diintii islaamku ilaahay mahadi waa taasoo waa arkaysaa intaynaan halkan iman carabtu waxay tiraahdaa rubba baaratin naafica rubba baaratin naafica maxaa looga jeedaa waxaa la jooga jeedaa waxaa laga yaabaa wax adigu waxyeelo ku ah inay hadowka noqoto wax faa'iida الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته واشهد ان لا اله الا الله وحده
ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم إليكم شكري بعد شكر الله تبارك وتعالى لكل من ساهم لإعداد هذا الجامع وهذا المشروع الضخم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في ميزان حسناتهم من صغيرة وكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معذرة سأتحدث بلغة صومالية إن شاء الله. والله رياض حقا ما كان ما فرحان سواء وياه. هذا فرحة وحروف فرحان جدا. هذا الأوية وحقوهن ودواجوه. وفرح كما لكن مسؤولية نصوكرتي مسؤولية معها لا راحة بعد اليوم أي تاغنتا، لا راحة بعد اليوم. إلهي تبارك وتعالى وحكشك المؤمنين مؤمنين صفات كودا مؤمنين تبارك تياري مسلمين تمنها يوحنا مؤمنين توي. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نقف إلى هنا. خلاص الله تبارك وتعالى وحكشك نبي محمد يا صحابة الصفات إلى الوحي الرحماء بينهم. هذا كيف يسجعليه وإسجعلايه وحي وراءه يسكول فرحيه وحي حماه وإسكالات غنيه الرحماء بينهم. هذه الصفة والله كما مارمان مؤمن قفك مؤمن هدويه والله كما مارمان الرحماء بينهم. المعاملة بينك وبين أخيك الرحمة والمودة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قفك مسلم كيف هذا هذين كبار عن عجيل هذين عنده وسجل مقامك ومجي فكر. فكذلك المؤمن وسيلة صوتها معاملة ذاتك أولى حيث الرحمة المودة. المعاملة بينك وبين خالقك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم. إلهي معاملك إليه هنا وسجود يركوع يوجد لك إيمانك نوعا ومثك ماشا هنكر ومثك بلعدا هنكر مساجد إن لقوا في الله دلاليه ويقول لكن مهمة السلام معها. النبي عليه الصلاة والسلام وجد الشكليات والمظاهر وحيابهم والزخرفة. نبي وحيري لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. أخرجه أبو داود وأبو أحمد. نبي وحيري القيامة مركز سلو يعني ذلك المساجد يشوفوا فانيا أنا كان بالعبرة أنا كان الحربة أنا مساجد كي يكاويها سلاسة القيامة مركز سلو يعني يشوفوا فانيا. ما أمرت بالتشييد. نبي وحيري ما يسأل الله أمره ولكنه أخرج نبي جامع عيسى. هناك جامع وجامعة. الجامع ومسجد كان الجامعة ويونيفرسيتي ملاها على غيرك. أيهما أفضل؟ الجامع أفضل أم الجامعة أفضل؟ ما رأيكم؟ أيا قيمة بدل مسجد كأي جامعة أيا قيمة بدل والذكر خير وليس الذكر كالأنثى. الجامعة والجامع الجامع ونن الجامعة وأسنان نبى لو يدي شيخ من علماء الأجلاء في اليمن أيا لو يدي أيهما أفضل الجامعة أم الجامع؟ الشيخ الحجيري هذه قال سؤال في جوابتين. الجامعة سماها
كفضل بلنبوي وليس ذكر كالأنثى. جامعة دور المسجد في حياة الأمة. مساجد كان سيدا أوديسية بلحظة أوديسية هاي ملح كالولاها فكان اسمه كنيسة. المبنى هو المبنى، اسمه هو اسمه، لكن هذا وحل عليه جامع. وأمس القريب، الأمس القريب، لا أقول أمس، الأمس القريب إذا عرف نكر وإذا نكر عرف. الأمس شل وحوها كنيسة وأصبح اليوم جامعا. جامعا حكم منا الفقير والغني، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس. كان له قامني الحاكم يصلي بجنب المحكوم قدومه وحكم دكنا كي حكمه، ويصلي الوزير بجنب الفقير. هذا هو الجامع. وإن وحي الله سار تجاري ماذا إذا قال هذه العقد هذه إيجاري هذه كل حاجة مسوتة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إلهي تبارك وتعالى قفك قلب خالص وكنسل هكا سوقل لو رجعوا دكان تعاودا ودكان يقف لا هي وساهية شكون متمنى غفران مركب والله يا أنكم فرحنا بالعدانة مسؤولية كسر صعطة. يقرأ قول الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إلى هنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا ديدان خير كان إلهي إلا بدأ الباب كفري إن أتقعنت قصتان. هذا ديدان على سبيل الفرض والتقدير وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم. لكن حال الدقيقة واحد كذب يعدي ودده وكوي عد هاي ويعدي كذبته يا إلهي تبارك وتعالى وعرض عليه. وإن تتولوا هذا ديدان أي توليتم عن أمر الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه يستبدل قوما غيركم. ما عد باك عقل بدنت، ما عد باك شهادة بدنت، عدة نسبتك. كلا وألف كلا. إلهي يستبدل قوما غيركم. ذكروا إلهي قادنا ثم لا يكونوا أمثالكم. من قريان سيدي أديك أتسميسان محانا عي وأركين لباتنا ويكوي عليها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولا لا يروح لكم فرحنا وينتهي مسؤولية ما يشخص ساعتنا وينتهي. دور المسجد أو محير إشارة بالكوي فيه. المسجد كدور كيس وحاوي الحفاظ على إيمان المسلمين. مسلمين تنو إيمان كوهان كوي وهو الرئيس السبب الرئيسي واسدة إنه ضد إيمان كوي عليوي. بنانك مركز قلق إنباتات المشاكل كوسا قبضته. فتعالى هنا توضأ ثم تحسن الوضوء وتصلي لله ركعتين ويصير سوها قاعد ولا برجع إلى عندك وحصل العلك آلية. الحفاظ على إيمان المسلمين. مساجد كدوك أوليه وحوي إنه حرب أما أتكيو تقوية الروابط والأواسر بين المسلمين بغض النظر عن أعراقهم عن أوطانهم عن قاراتهم. كل واحد صدق إنه له مساجد وماشى مسلمين تلاقاها قاعد قيادة رسمية ماشي جوته شنت وقت كل اللي شيء ماذا وحال أوجانا كلها تفقد أحوال المسلمين. يا حنوسا أيا جيران أيا كانوا باهم أيا صوب وقنا شنت وقتي. ولذلك أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني؟ قالوا لا يبقى من درني. فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما قال. شنت وقت قبك سود كان يواقف شن ما قويسو ما يفتي شعب يسابون اسكمريه موسق يوسف كهري مي واسدا مساجدك وبيت كل نقي مسلم. فحنا ويدتا مسؤولية بين ويسوسعتا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قلت سجلتي ماشى القرط هذا في ذنه وأنا صفة السيرة إنه كان ظلوما جهولا توين كيف يجينا
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن احنا خاصه ويسو كيرنا وقت ما يكلم هذا المكان، لكن على كل حال والله مسؤوليه معها تقع على امام وعلى رئيس وعلى امين، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث الامام البخاري وحبها رياضي وضعيف عصرين. والله قفل هو مسؤول، رجالا ونساء شبابا وشيوخا، مسؤولية وسارتها ست دوني هذا الكلام بسارتها، لكن المسلم وبسارتها محاضرة ما شاء الله هذه وقرنا ولا شيء كنيسة بيها تشرك بالله تبارك وتعالى. هذا توحيد الله وعلى السلام مريم امتحانه بدنا ضعف ونقص وزيادة محاضرة مهما يكسر صحيح. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أبي فراس الحمداني عبد العزيز بليلة، مسجد الهدى مقالة فلين ودنك سويدان، تيفيق عالمي صومالي جنرال.